inta aan ogahay aboowe madaxweynaha anigu waxaa ogaa asagoo laga tiriyey xilka maamulka dalka iyo dadka oo lagu wareejiyey ra'iisul wasaaraha si dastuuriya baarlamaanka hortiisa haddaana qaldanayn waxaa kaloo ogaa madaxweynuhu inuu ahaa musharax la tartamaya musharaxiinta kale oo xilka u sharaxa marka ciddii xil laga qaadaayo iyo ciddii xil loo dhiibaayo waxay ila tahay asaga inuusan shaqo ku lahayn because ra'iisul wasaaraha loo dhiibay nidaamkaas iyo maamulkaas iyo shaqadaas inuu wado because waa ogtihiina u malayna ayaan dhexdaas khalkhal inuu waddanku galay haddii uu madaxweynuhu wax saxaayo ama wax toosinaayo markii horeba khalkhalkii aan galna iyo dagaalkii iyo hubkii madaafiicii meeshaan layskula soo baxay waa ogeyna waxaas ma aysan dhacdeen marka siday aniga ra'yi ahaan ay la tahay uma aragtaaye uma tababaran uma diyaarsano madaxweynuhu dalkan iyo dadkan inuu hadda kadib sii hago ama uu sii hogaamiyo ra'iisul wasaaraha waxaan u aragnaa nin nabadoona inuu yahay oo nabadda aad u jecel nin muxtarama inuu yahay nin dadka inuu wanaajiye rabo waxa sababta ku kaliftay inuu qaado xilkan ama uu ka wareejiyo Fahad Yaasiin waxay ila tahay nabad inuu dalkan iyo dadkan ku soo dabaalo waa nabadoonnimo طبعا waxa way fidna haday kacdo waa la damiyaa lama sii bulbuliyo qaabkii loo damin lahaa iyo nidaamkii loo maro moogta gabadhan ninkaana lagu eedeynaayo iyo meesha uu madaxda ka yahay sirdoonka hal waxa uu noqonay cabasha jirto shacabkii cabanaayo ehelkii cabanaayo dadka ana cabsanaayo oo biri ka maalin waxa ugu imaan karaan min ajli hada wixii dabagal in lagu sameeyo waa kiis markuu dhaco meel markay wax ka dhacaan waxa ugu horeyso oo la qabtay yaa waay dadka maamulka iyo mas'uuliyadda hay meeshaas la xisaabiya hay hadday xil hayeen xilkiyaa si ku meel gaar xataa hadday hadhow yeeshaan lagu soo celiyo si ku meel gaar looga sii qaadaya si xal loo helo madaxweynaha ayaa qoraal kala kusoo saaray madaxweynaha anu waxaan dhihi lahaa middi mudukutaag xal maaha ummaddan waa kaceen waa qayliyeen indhahay furteen waa cabsadeen dadkaan hadlaaya gabdhay dhaleen moogta ikraanoo kale ani hadda gabara ay eela i dhalay ikraanoo kala ahay wax kasta carabtu waxay tidhaahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj waxa daawada intaada gaari inta cudurka intuu kugu dhicin oo isdaaweyn lahayd intuusa imaanina laga hortagaa ka hortag hadda waa samayn weynaba annaga laakiin waxaan rabnaa sidii loo xallin lahaa waxa xalkeedii anigu waxaan u arkaa waa uu maray ra'iisul wasaaraha waayo si kale laguma daawoobi karo ayadoo oon kiiska dadkii loo malaynaya ama lagu tuhumaayey aan tilaabo sharciya laga qaadin halka anigu saasaa u arkaa waa tilaabo habboon in la qaado oo dadka xilkana laga qaado taxqiiqna la mariyo su'aalo la weydiiyo la ogaado inay dambiilayaal yihiin inaysan ahayn la kala ogaado marka nin maamula ma la baari karaa lama baari karo koow xilkaa laga qaadaa kadibna waa la baaraa hadduu beri noqdo waa sidii la rabay